الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيكada 34 القطة والفار جير iyo bisad waxaa la sheegay in dhul la oran jiray Saranadiib uu ku yiil geed weyn oo galool ah waxaana geedka salkiisa god ku lahaan jiray jiir la oran jiray Faraydiin meel u dhowna waxaa god ku lahayd bisad dabadeed magaceedu ahaa Ruumi waxaana dhici jirtay in ugaarsatadu marmar iman jireen si ay uga eegtaan ugaar soo marta oo ay u ugaarsadaan maalin ayaa nin ugaarsada ah geedkii yimid oo wuxuu daadsaday dabin uu rabay inuu ugaar ku dabto waxaase dabinkii gashay bisad dabadeedkii Ruumi waxaa isna soo baxay jiirkiisii uu cunto u raadsado isagoo feejignaan qaba oo isjira oo wax eegaya wuxuu si arkay bisadii oo ku duuduuban dabinkii loo daadshay markaasuu farax dilaacay oo muusooday oo qosol wajiga ka wedwedhay mise dib ayuu eegay wuxuu arkay soongur isaga ku raad jooga uu kor eegay mise guumays ayaa geedka korkiisa saaran oo isaga u gabanaysa si ay u qabsato oo u cunto wuu baqay oo boodiyaha isla dhacay haddii uu dib u noqdo wuxuu ogaaday inuusan ka badbaadahayn soongurka hadduu midig ama bidix u leexdana waxaa dhufsanaysa guumaysta hadduu hore u maro bisad dabadeedkii ayaa xaggan joogta oo cadho daandaanka burbursanaysa markaasuu yidhi jiirkii waa tanoo balaaya waxay soo fuushay karbahayga dhibaatana waa isoo dul fadhiisatay iima wanaagsana oo ima badbaadin karto cabsi ee waa inaan caqligayga dhuuxaa oo siyaasad isticmaalaa ilaahayna nabadgelyo weydiista markaasuu yidhi siyaasad ma arko inaan saaxiibtinimo bisada ka doono mooyee wuu u soo dhawaaday oo yidhi bal iska waran bisadii ayaa ku jawaabtay wixii aad ila jeclayd waa i helay oo waa i haleelay dhib iyo xiriiri ayaan ku jira jiirkii ayaa yidhi beeni waa xaaraan kuna sheegi maayo runtii waan ku faraxsanaa waxa ku helay oo waxaan u arkayay inuu xiriirigaagu aniga barwaaqo ii yahay balse maanta balaayada waan kula wadaagaa rajayna maayo inaan badbaadayo ilaa inaad i kaalmayso oo i caawiso mooyee waadna garan oo hadalkaygu been iyo khiyaano midna ma aha bal eeg dabadayda waxaa dhabacan oo inuu i qabsado u dhabacan soongur korkaygana guumays ayaa doonaysa inay i dhufsato dhammaantoodna waa ii cadow adigana waa kuwa cadow waxayna ii qabsan waayeen adiga ayay kaa cabsanayaan oo kaa haybadaysanayaan haddii aad ammaan isiiso oo inaan kuu soo dhawaado oo dhabta kaa galo ogolaato way iska tegayaan oo waan ka badbaadayaa aniguna waxaan kaa saarayaa waxaad ku jirto ee i rumayso markay bisad dabadeedkii maqashay hadalkii jiirka ayay farxday waxaanay garatay inuu run sheegayo waxayna jiirkii ku tidhi hadalkaaga waxaan u arkaa run iyo daacad waana oofiyey ballankaaga jiirkii ayaa yidhi haddaan kuu soo dhawaado oo ay arkaan soongurka iyo guumaystu wax aan hore u dhici jirin ee ah heshiiskeenna way quusanayaan anna waxaan gudagelayaa googoynta xadhkaha kugu xidhxidhan way yeeshay wixii uu ka dalbaday jiirku oo waxaana iska laabtay soongurkii iyo guumaystii iyagoo gacmo madhan jiirkii wuxuu bilaabay inuu googooyo xadhkihii wuxuuse reebay hal guntin ah oo marka la jaro ay wax waliba kala daadanayaan wuxuuna yidhi hadda kan goyn maayo waxaanse goynayaa wakhtiga ay habboonaato markii uu yimid ugaarsadihii si uu shabakadiisii u furto ayuu jiirkii yidhi hadda ayay tahay wuxuuna jaray guntintii u dambaysay wuxuuna u cararay godkiisii bisad dabadeedkiina waxay u carartay godkeedii ugaarsadihiina wuxuu urursaday xadhkihiisii oo go'an isagoo cadhaysan faallo tusaalahani wuxuu tilmaan u yahay ciddii digtooni qaadata marka ay la macaamilayso cadowgeeda aan u wada dhiiban qoortiisa ee ka danaysata dantiisa iyadana teeda u fulisa waxaa kaloo laga faa'iidayaa waxa loogu yeedho cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibka ee ka dan gudo waayo dhibta waxaa la celiyaa teeda weyn dabadeedna teeda yar dhammaantoodna waxay doonayaan digtooni iyo feejignaan dheeraad ah
sheekada 13 almalak wad-daa'ir boqor iyo shimbir waxaa la yiri boqor kamid ahaan jiray boqoradii hore oo la oran jiray barhamuud ayaa lahaan jiray shimbir la oran jiray gabara wuxuuna ahaa shimbirku afmaal aqli badan wuxuuna lahaa dhal boqorkii ayaa shimbirkiisii iyo dhashiisii geeyay meel ay joogtay dumarka uu qabo tan ugu wanaagsan wuxuuna amray in shimbirka iyo dhashiisaba la wanaajiyo oo la xanaaneeyo intaa kadib waxaa wiil dhashay naagtii boqorka markii uu koray wiilkii waxay saaxiibtinimo dhex martay shimbirkii yaraa waanay wada ciyaari jireen shimbirta weyni waxay aadi jirtay buurta oo waxay ka keeni jirtay maalin kasta 2 xabadood oo midho ah mid waxay siin jirtay wiilka boqorku dhalay kan kalena waxay siin jirtay shimbirka ay dhashay midhaha ay shimbirtu keeni jirtay waxay hagaajiyeen kuriinkii wiilka iyo shimbirka yar waxayna arintaasi boqorkii dhaxal siisay inuu shimbirtii aad u jeclaado yeelkeeda maalin maalmaha kamid ah oo shimbirkii ku maqan yahay midhihii ayaa shimbirkii yaraa wiilkii dhabta kaga saalooday wiilkiina waa xanaaqay oo shimbirkii yaraa ayuu dhulka ku dhuftay waanu dhintay shimbirkii yaraa markay timid shimbirtii oo ay aragtay ilmaheedii oo dhintay ayay weeraxday oo qaylisay oo waxay xagatay wajigii wiilka oo waxay kala soo baxday labadii indhood dabadeedna waa duushay oo waxay fuushay meel sare warkii ayaa gaadhay boqorkii oo waxaa loo sheegay waxa wiilkiisii ku dhacay markaa ayuu xanaaq daran oo wuxuu doonay inuu shimbirta khiyaameeyo oo uga argooyo wiilkiisa boqorkii wuxuu fuulay meeshii ay fuushanayd oo markuu u dhawaaqay oo ugu magac dhabay magaceedii wuxuuna ku yiri waxa tahay aamin ee soo noqo waa ay diiday shimbirtii oo waxay tiri boqorow dhagar qabe ma haboona in la dhagro haduuba khaldamo oo ku degdego argoosi kuma khaldamo in laga argoosto haba gaaro awowka awowe inankaaguna wuxuu ku xadgudbay ilmahaygii anna waxaan ka abaalmariyay ficilkiisii boqorkii ayaa yiri adigu haddii aadan naga argudan annagu waxba kuguma aanan samaynin haba ahaato ficil bilowgii mid annaga naga yimide arintuna waa sida aad sheegtay oo annagaaba kugu bilownay cadowtinimee adigu maxaa dembi ah oo samaysay maxaana kuu diidaya inaad nagu kalsoonaan weydo soo noqo waxaa tahay aamin shimbirkii waxay tiri caadadu waxay taalaa qalbiyada meel ay ka hurto oo ku qarsoonaato innaguna ma rumaysan karno qalbiyada boqorkii ayaa yiri ogow oo midka wanaagsani ma gooyo oo kama tago isjacaylka iyo walaaltinimada shimbirkii ayaa yiri cilqabku wuxuu ahaaday mid laga boqo weligii oo wuxuu nabadgeliyay boqorkii uuna duulay faalo tusaalahan waxaa loogu mahmahaa ciddii ka go'aan gaadha saaxiibo uurka ka buka oo ku cilqaba wax toos ama kama u dhacay oo aanu dhaafin kii gefay iskana dayn kii loo gefay waayo xumaanta waxaa lagaga ficil qaataa wanaag oo sidaa waxaa yeela kuwa laabaha ka fiyow oo ka caafimaad qaba waa kuwa dembiyada laga galo iska dhaafa waa kuwa ceebta ay arkaan qariya waa kuwa caladooda qarsada alla sareeyo quraanka wuxuu ku yiri a'uud billahi minash shaytaani rajiim idfa' billati hiya ahsanu sayyi'atan nahnu a'lamu bima yasifun raaci dhaafso tan wanaagsan midda xun annaga og waxay tilmaamiyeen